إمام غزالي wuxuu leeyahay qofka bini'aadamka waxaa ku dhex jirta oo inta badan 4 shakhsiyadood oo u dagaalanta ama u tartanta si ay u maamulaan qalbiga. Midka koowaad waa mid doofaarka oo kale ah. Doofaarka wuu iska rabitaan badan yahay, shahwadiisu ku socdaa, wax walbana wuu iska cunaa moogta, xad ma lahan. Mid waa taasaa appetite-kaas oo iska furan. Midda labaad waa sida eeyga oo kale, shakhsiyadda eeyga haddaana la tarbiyadayn wuu xanaaq badan yahay, waxbuu isku burburiyaa, waxbuu dilaa. Midda saddexaad waa shaydaanig, mid oo shaydaannimo ah oo qofka inuu xumaato bes uu ku fikiro, in dhagar, in wax uu maleego, xumaato keliya adiga. Midda afaraadna waa angelic form ama midda oo malakiga, sifaadka malaa'igta, qofka inuu xumaato dhan uusan ku fikirin oo wanaag bes uu sameeyo. Midaasaana loo baahan yahay inaan u dhiibno maamulka qalbiga.